xabsigii muddada dheer la geliyey Nelson Mandela ayaa ahaa dhacdadii ugu weyneed Afrika qarnigii la soo dhaafay iyadoo maalinkii laga sii daayay xabsiga ku yaala magaalada Cape Town uu ahaa warkii ugu weynaa ee xilligaa la maqlo balse daawada ma qiyaasi kartaa inuu qayb ka ahaa siideyntii Nelson Mandela nin Soomaali ah oo mas'uuliyadiisu ay ahayd inuu xorriyadiisa dib u helo Mandela isla markaana uu waan nabadeed dhaxdhigo dadka madowga ah iyo kuwa cadaanka ah ee ku wada nool dalka Koonfur Afrika haddaba kuma aha Soomaaligaas gacanta ka geystay siideyntii Nelson Mandela magacaygu waa Haruun Maxamuud barnaamijkuna waa xogdoon ku soo dhawaada daawadayaal mowduuceena maanta ninka sawirkiisu kaga muuqdo shaashada sare waxaan filayaa qacdii horeba inaad aqoonsatay waa Cabdiraxiin Caabi Faarax oo dhawaan geeridiisa la xaqiijiyay Ilaahay ha u naxariistee ma ahayn Cabdiraxiin nin Soomaalida oo kaliya dhexdeeda caan ka ahaa balse waxa uu ka mid ahaa dadka yar ee farakutiriska ah ee magaca weyn ku dhex lahaa beesha caalamka muddo dheer ayuu u shaqaynayay Cabdiraxiin qaramada midoobay isagoo ka gaaray ilaa heerka ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxyaabaha aadka loogu xasuusto danjire Cabdiraxiin waxaa ka mid ahaa markii ay qaramada midoobay u magacowday gudoomiyaha guddiga la dagaalanka midab kala sooca kaasoo loo xil saaray arrimihii ka taagnaa dalka Koonfur Afrika halkaasoo ay ka jirtay dawlad ku dhisan midabta koor wuxuuna guddigiisu markii dambe ku guuleystay inuu xabsiga ka sii daayo Nelson Mandela oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee dalkaasi uu yeesho isagoo ahaa ergeygii joogtada ahaa ee Soomaaliya u qaabilsanaa qaramada midoobay mudane Caabi waxa uu beesha caalamka ka dhex noqday shaqsi saamayntiisu ay aad u badan tahay laga soo bilaabo sanadkii 1979 ilaa 1990 waxa uu soo noqday ku-xigeenkii xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu noqday shirgudoonkii golaha ammaanka sanadkii 1972 isagoo sidoo kale Soomaaliya wakiil uga noqday jaamacadda Carabta mudane Caabi waxa uu dhashay sanadkii 1919 waxa uuna ku dhashay dalka Ingiriiska halkaasoo aabihiis degay xilligii gumaysiga Ingiriiska gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay ka talinayeen isagoo 98 jir ah ayuu ku dhintay mudane Caabi magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo uu deganaa tan iyo intii uu howlgab ka noqday Operating paragraph 3 calls on Israel for the return of the above mentioned personnel without delay.